وإبراهيم با أو إذا كلا سو هذا دلك أستراليا ما أنتنا وحور باهين تقرن كصوماليات شرف إيميل جوا هنا كلا سو قيب كشو جاليد الصوماليات قبل كان كوينزلاند فريتانكا أما دافوركا حرنتن الصومالي هاوس أما صومالي هاوس أو نقول دون حرن تي وجوه الرئيسي أو نوع هذا دلكني أستراليا جاليد الصوماليات كويالتو marka la tixraaco tirakoobkii dowladda Australia ee sameysay sanadii 2021 gobolka Queensland wuxuu ka dhigayaa midka labaad ee Soomaalida ugu badan dalkani Australia ee degan yihiin halkaasna waxa degan jaaliyad Soomaaliyeed oo ballaaran jaaliyadda ayaa waxa ay xarun ay ugu magac dareen Somali House ama aqalka Soomaaliyeed ee ka daafureen halkaas waxaana xafladda furitaanka kala soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalkan iyo siyaasiyiin heer federaal iyo heer gobol ee dalka Australia oo ugu cadcada Milton Dick oo ah afhayeenka baarlamaanka federaalka dalka Australia oo ah xubin laga soo doorto gobolkaasi sidoo kale kama marnayn Fiona Simpson oo kamid ah golaha wasiirada ee maamul goboleedka Queensland dhanka kale Faisal Ahmed Salaad oo horey gudoomiye uga ahaa jaaliyadda ayaa sidoo kale ka soo qayb galay balse haatan ah madaxweynaha dalladda ay ku mideysan yihiin jaaliyadaha Afrikaanka ah ee ku dhaqan gobolkaasi gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Queensland mudane Awees Mooge oo si rasmi ah u daafuray xarunta ayaa hadal kooban oo halkaasi ka jeediyay kuna baxay luqadda Ingiriiska waxa uu xoogga saaray muhiimadda ay leedahay xaruntan inay yeelato jaaliyadda qayb kamid ah khudbadii halkaasi uu ka jeediyay waxa kamid ah Today is more than opening day. Somali House represents a vision, a journey, a shared commitment to unity, belonging, and opportunity. Somali House is a community hub, a safe and a welcoming space designed to support settlement, education, business development, youth program, women's initiative, and a cultural exchange. We are also good friends, and this is going to be a great place of learning, inclusivity and joy. And I know that from having coffee and listening to the people that I represent who call Somalia home as well. They have come to Australia, many with nothing, but love in their heart and a passion in their minds for joy and giving back to the next generation. And that's what this place is going to be. Congratulations and well done. Congratulations, everyone. Congratulations. What an awesome achievement. And we are very proud of our Queensland Somali community. We are very, very proud of our community. And lastly, I want us to come back in 5 years' time and have a birthday celebration for the opening of Somali House and hear all the positive stories of how people have been assisted and inspired and appreciated and supported through Somali House, the heart of the Somali community. Thank you very much. We also know that the journey for many Somali families coming to Australia is one of courage and resilience, and that is what this centre represents, because it is courageous to establish Somali House, to establish it, to set it up, to paint the walls, to know how you're going to keep it sustainable and ongoing. That it takes courage for your community. The opening of Somali House, as the President said, is not just the opening of a building. It represents unity, continuity, and collective success. It also represents pride, purpose, and vision for generations to come. لكن أنا واحد أقصونه هي هادانو جماعة قبصنا community أود community وجناعسجة هدي معناها جناعستها هدي جماعة قبصدان community أود يلنا هدي جناعستها هوس سكوفيريانا community هوس سكوفيرنا. I know a lot of people, a lot good number of the Somalis واحد discrimination اللي وصل من مجعوضة color كوضة يقدر كحرتان especially قبل هنا you never know I've seen it. marka nimiyaha Soomaali idnay maqan male ilaahay ka sukow anaka isku maqan hadda anaka kala tashano wax hagaagay male please we need your support gacmaha is qabsano advice aan siinaya Somali House waa very unique club way inaka iskale inaga dhisateen inaka digini galisiin protect gareeya laakiin maanta inaka waxa nasiib ku leeyihiin waa business oo mataqaana oo enterprise ah
oo Soomaalida dhan meeshan joogto maanta hadaa u baahnaa accountant wuu joogaa maanta hadaa u baahnaa travel agent wuu joogaa maanta hadaa u baahnaa qof kasta wuu joogaa you can mentor yourselves ina meel aadin mahan. And this morning the Somali community in Queensland waxaad display gareyseen when you surround yourself powerful people there is power. Let that sink in. When you surrender yourself powerful people that's power. So marka waxaa jirta maama ah I am who I am because of who we all are. Dhinaca kale markaan u fiirina waa each one teach one. Cilmiga aan raadinayno iyo resourceska aan raadinayno hadda the Somali House is Somali community business hub all integrated at one. Ma ahan dadka tiradooda in ay horumar ku gaaraan waa quality-gooda. aniga dhowr business aan sameeyay laakiin hadda waxa u badan dhowr business waxa kamid ah Connect Wise Solutions waa isku xirka bulshada iyo dawladda iyo meel kasta sidii walaalkii Ramadan uu sheegay wuxuu sameeyaa flight center naftigeeda uu ku jirtaa flight center inta xataa uu ku jirtaa fiisiyaashu uu ku jirtaa shaqada dhimista hadda aan qabto wuxuu ahay reer soo baxay oo Nairobi imaaday oo inta ka tagay habeen dhaxtaas way soo dhimaysteen holiday lacagtii hayn waa soo spend gareeyeen bye soo dhahay markii imaadeen airport waxa la dhahay visa interim haysta Australia ku gasht marka waxay dhaheen maalinta aniga travel waxaan wadnaa travel document Australia ka imaanay nationality waxa la dhahay Australia ka imaanay laakiin ma haystiin travel document ku gashaan marka contact point u horeeyay waxa marka shukri hela raadiyay marka waa lagu soo wacayaa saqdaxa lagu soo wacayaa lagu dhahayaa qof ay airport ku xanimo marka waxa waaya arimaas oo badan aan ka shaqeynaa dhalinyarada ka shaqeyso waa jirtaa laakiin marka aad xafiis u fadhido aad bay u dhib badan tahay dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay xaruntan oo warbaahinta qaranka ay wax ka weydiisay dareenkooda ayaa waxa ay yiraahdeen السلام عليكم ورحمة الله مقعيقو أكان أبو بكر آذين أوغو فرح سنة هاي كسو قيب قلق دحفوركا بالصومالي هاوس وحان رجينا إني آد uga faa'iideysan doonaan ummadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Queensland. magacaygu waa Maxamed Amiin halkan caawa aan joogo waa Somali House oo runtii aan uga soo qayb galay daahfurkiisii oo maanta ahaa dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ma sha Allah gabdhiyo wiilal iyo odayaal iyo dumarba iskugu jira oo dadaalay oo hawl fiican meeshaan ku qabtay ayaan uga nimid gobolka Victoria ma sha Allah Somali House team aad mahadsantihiin runtii Somali House team dadka waxyaalo fara badan buu u qabtaa oo maaragtay businessyada ay kamid yihiin oo aan ka mid ahay oo nahay maaragtay businesskii ownerkii koobaad ee Victoria business kiisa intuu ka soo raro ama halkan xafiis ka furta ayaan ahay no maaragtay my business accountant-iga businessyada kale dad kale Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay xafiisyada qaataan oo maaragtay centerka taageeraan oo ma garanaysaa dadka gacanta ku haya ee teamka ay taageeraan insha Allah ayaan rajeynayaa magacayga waa Cabdullaahi Garfiiq waxaan ahay aasaasaha iyo madaxa shirkadda Zimani farxad ayay inoo tahay in aan ka soo qayb galno xafladda furitaanka Somali House oo ah madal ama goob ay leeyihiin community-ga Soomaalida ee ku nool magaaladan Brisbane oo runtii Soomaali aad u tiro badan ay ku nooshahay waxaan aad ugu faraxsanahay in aniga aan ka soo safray magaalada Melbourne oo runtii magaalo aad ugaaga fog si aan u tusno in community-ga halkan inaan markasta aan garab taaganahay ayna muhiim tahay in Soomaalida meel kasta ay joogaan state-kii doona ha joogaane inay garab istaagaan ay aad muhiim u tahay farxadena inoo tahay waa mahadsantihiin TV-ga qaranka na runtii shaqada uu halkan ka hayo iyo walaalkeen Ibrahim aadan kaga mahad celinaynaa waxaa ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo eventigan lagu daahfurayo the Somali House waa dad dhalinyaro oo leaderka Somali community of Queensland ah iyo ganacsadaas ku imaaday si ay u sameystaan xarun ummadda Soomaaliyeed ee gobolkan isku timaado waa initiative aad u fiican initiative-gaas oo lagu mideynayo ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum magacaygu waa Najiib Cali maanta halkan waxaan soo ugu nimid waxay ahayd daahfurka
the Somali House waa aqalka Soomaalida ee ka dhisan Brisbane kaas oo xil saaran waxyaalaha laga caawin karo ama bulshada kaalin weyn ka qaadan doona ee Soomaalida dhexdeeda aniguna jiib ahaan waxaan ahay macallin jim oo qaybta coachingka hadday noqoto cuntada iyo hadday noqoto qaybta caalamiyeedaba u xil saaran maanta arrinta halkan aanu ku qabanay ee noo soo gabagabowday waxay ahayd arrin aad u qurux badan kaalin weyn ka qaadan doonta qaybta bulshada waa midana aad ugu faraxsanahay waxyaalo fara badan oo aad u qurux badanna waanu rajaynaynaa oo noo soo socda Ibrahim Daoud Ibrahim Ba warbaahinta qaranka magaalada Brisbane ee dalka Australia